Audio Jungle. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام waxaad ku soo dhawaataan koorsigii aan ku baranaynay sidaan u samaysan lahayn website lacag la'aan anagoona wax kood aan qorin. Casharkan waa casharkii sagaalaad waxaana ku qaadanaynaa qaabka aan website-keena u soo dhigi lahayn. Ugu horreyn meeshan ayaan imanaynaa, kadib halkan ay ku qoran tahay new post ayaan riixaynaa. New post markaan dhahno waxaa noo soo baxay in meeshii aan postiga aan ku qoran lahayn. meeshan ugu koreyso waa meeshii ciwaanka postiga lagu qoro ama title-ka. Sidoo kale waxaa jira laba environment-gan waa midka haddeertaan idin muuqdo waa midka caadiga ah. Midkan waa midka HTML code haddeertaan haddii aan bold aan qorno code ahaan ayuu usoo bandhigmaa, balse inta haddaan fiirino waxba ma soo bandhigmayo. So meeshan markaan joogno waxaan caadi iskaga qoraynaa qoraalkeena. haddii aan u baahannahay in aan qoraalkan formatkiisa aan ka bedelin halkaan ayaan ka bedeli karnaa, balse HTML markaan joogno waxaa yaraanaya optionada fara badnaa aan halkaan ku arkaynay. So hadda jeer waxaa iska fiirsaa environment-ga adiga aad isticmaalaysid. midkaan ayaan click leenahay, kadib meeshaan ayaan waxaan ku qoranaynaa ciwaanka aan u baahannahay. waxaan soo diyaariyey qoraal yar aan ugu talagalay inaan postiga koowaad aan ka dhigano. So waxaan soo qaadanaynaa ciwaanka koob ayaan leenahay, meeshaan ayaan ku basta garanaynaa. haddeertaan waxaan qoranay ciwaankii postiga. sidoo kale waxaa samayn kartaa meeshaan mar labaad inaad ciwaan kusoo celisid, balse waxaa fiican inaad ciwaankaas kor aad ku qoratid kadib postigaada aad u gudub gashid. waxaan koob garinaynaa postiga inta noo haray. koob ayaan leenahay, control C, kadib inta ayaan imaanaynaa basta ayaan leenahay. haddii aan u baahanahay inaan hoos aan geeyo ayaan dhehaysaa. qoraalkan haddii aad u baahantahay inaad formaatkiisa aad bedeshid inta ayaa ka bedeli kartaa. haddeertaan bold ayuu noo yahay, italic ayaan ka dhigi karnaa. sidoo kale underline ayaan u samayn karnaa. sidoo kale qoraalka waxaan ka bedeli karnaa colorkiisa. link haddaad u baahan tahay qoraal yar ayaa halkan ku qoraysaa, kadib linkiga ayaad ku dhufanaysaa. balse waxaan ku arki doonaa videoda kale. intaan option waxaad haysataa markii aad joogtid compose, balse haddeertaan haddii aan HTML-ka aan tagno waxaa naga yaraaday optionadii halkaan aan ka arkaynay. aan kusoo laabano meeshaan, kadib waxaan leenahay publish markaan dhahno waxaan imaanaynaa qaybta view-ga. hal mar waxaan u diraynaa refresh. markii aan refresh garayno postiga haddeertaan aan soo dhignay uma jeedno, balse qaybtan kore meesha newska haddaad fiirisid ciwaanka boostada kaliya ayaa kasoo muuqdo. intana waxba uguma jeedno, sababtoo ah boosta walba aad soo dhigaysid waxaa qasab kuga ah in aad level soo raacisid. So inta ayaan imaanaynaa, click ayaan leenahay postiga. markii aad postiga click garaysid meeshaan ay ku qoran tahay levels ayaa click garanaysaa. markaad click garaysid inta waxaa lagu qoraa postigaaga meeshuu hoos tagi doono. haddeertaan aan kasoo qaado waxaan rabaa inaan geeyo wisdomiskan. inta ayaan waxaan ku qoraynaa wisdomis markaan dhahno kadib update ayaan sii leenahay. update markaan dhahno haddii aan imaano qaybta view-ga refresh ayaan u diraynaa. refresh markaan dhahno halkan waxaa kasoo muuqday postigii koowaad ee aan soo dhignay website-keena. sidoo kale qaybtan wisdomiska waxaa soo galay postigii hadda aan soo dhignay. sababtoo halkan u imaado waxay tahay levelka boxiga noo haya ayaa wisdomis ku qoran. sidoo kale waxaa fiican mar alla markii aad rabtid inaad posti aad soo dhigtid inaad sawir soo raacisid, sababtoo ah wuxuu kaa qurxinayaa muuqaalka postigaaga. haddeertaan haddii aan ku laabano website-ka postigii hadda soo dhignay ayaan kala garaynaynaa. markii aan kala garayno waxyar qoraalkan hoos aan u dejino, meeshaan ayaan waxaan ka rabaa inaan soo geliyo sawir. soo si aan usoo geliyo meeshaan image-ka ayaan kala garaynaynaa. insert image markaan dhahno waxaa awood u leedahay inaad from blogaaga haddii uu kugu jiro sawiro hore usoo gelisid aad ka raadin kartaa. sidoo kale Google album ayaa ka raadin kartaa, ama mobilkaaga ama kaamirada ama URL ahaan ayay u raadin kartaa. balse qaabka ugu fudud oo badanaa dadka u badan yihiin waxay tahay in uu sawirka u yaalo computerka ama device-ka oo isticmaalayo. halkan ayaan waxaan ka dooranaa choose file markaan dhahno waxaan raadinaynaa sawirka aan u baahannahay. dabcan sawirkeena halkan ayuu iga yaalaa. kadib sawirka markaad dooratid open ayaa leedahay. open markaan dhahno sawirka ayaan dooranaynaa. kadib inta ayaan waxaan ka dooranaa add selected. sawirka markaan soo gelina incase waxaad u baahan tahay sawirkan cabirkiisa inaad wax ka bedeshid
soo si u bedeshid sawirka ayaa kala gareynaysaa soo sawirka markaa kala gelisid meeshan ayaa waxaa ka doorataa smallkan waxaad isticmaalaysaa in case hadduu sawirkaaga aad u baaxad weyn yahay aad u baahan tahay inaad yareysid small ayaad riixaysaa medium ayaad ka dhigi kartaa sidoo kale large ayaad dooran kartaa sidoo kale waxaad ka dhigi kartaa x large original size-keena waa midkan balse waxaan ka dhigaynaa mid aad u weyn x large ayaan dooranaa x large markaad dooratid in case hadduu sawirkaaga yar yahay waxaa awood u leedahay inaad geysid leftiga ama right-ka ama centerka intaasba marow waxaan rabaa inaan ka dhigta sawirkayga x large markaa ka dhigtid kadib aan kala gelino waxyar xoogaa qoraalkan aan soo celiyo waxaan leeyahay update markaan dhahno waxaan tagaynaa qaybta view kadib halkan aan refresh gareyno hadda haddaan fiirino in muuqaalkeena xoogaa waxaad u muddaa inuu ka yar qurxan yahay kii hore videogana halkan ayuu ku eg yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu